بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الثناء لله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، maanta xalaqadani waxay ku saabsan tahay qadaa'i xawaa'ij innaas. Waxay ku saabsan tahay dariskan maanta wuxuu ku saabsan yahay dadka baahan ama tabaalaysan oo loo adeego khayrka ku jira, kuwii waxsi ilaahay siiyey ee u adeegi waayana waxay filanayaan ee xagga ilaahay ay ka filanayaan. إلهي سبحانه وتعالى ومؤمنين تلدر دارمي وحيد عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل سورة داس آية دا كترت سورة الحج: كوي الله رمييو إلهي الركوع والسجود وعابد ربي جيني إذن أبوري وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فعل الخيرات كان بتصدق، فعل الخيرات وناقة إنا فشان بتصدق ويلي الله سبحانه وتعالى لعلكم تفلحون. سياد أو أفلحدان إفي آخربا. هل كاوحو إلهي كشاقي قفك إنو مركا وراك صوبحو واجبات كي فرضك كوها ركوعي، صلاتي، صونكي، حجكي، عبادتي إلهي كواجبية إساقا قفكا شخصيقا إنو مركا هوريكا صوبحو. كبعد مركز وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فعل الخيرات كان قدر صدا أو خير كفلا. أصحابتي رسولك صلى الله عليه وسلم وأهدد أن عدنا أقدر يرين كرين خيرك مركو إلهي آيات داس مثلا يا آيات كلا أو لمد أو كل دردار ما يوم مؤمنين تأينا خير كفلان مركي أي مغلين وحيلهين رسولك أنت ويمادين سيد اللي قسوا وريا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لبن ويمد رسولك صلى الله عليه وسلم ويري: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ورسولك صلى الله عليه وسلم ugu jawaabay: dad oo dhan waxay yiraahdeen rasuulkii Allah labadaanin, dad oo dhan kuwaba ilaahay ugu jecel yahay. dad oo dhan wuxuu rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam, dad oo dhan wuxuu ilaahay ugu jecel yahay kuwa ugu nafciga badan dadka kale, kuwa ugu faa'iidada badan dadka kale. macnihi kuwa maalkooda, maskaxdooda, oo macnihi iyagoo kula talinaya maskaxdii, iyagoo hogaaminaya, iyagoo toosinaya, ku caawiya, maalkooda ku caawiya, muruqooda markuu ilaahay iyaga muruq siiyo, macnihi caafimaad siiyo, caafimaadkooda kuwa u isticmaala in ay dadka kala caawiyaan. wa habbu an-naasi wa habbu al-a'mali ila Allah. su'aashi labaad ee ahayd camal oo dhankeeba ilaahay ugu jecel yahay bay yiraahdeen labada saxaabi. wuxuu rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam: camal oo dhan wuxuu ilaahay ugu jecel yahay qof muslim ah oo aad farax qalbigiisa geliso, ka farxiso. rasuulku markaa sharxay sida looga farxinayo wuxuu yiri: takshifu anhu kurbad haysata, aafo ku habsatay oo aad ka kaxayso ama ka riixdo, aw taqdi anhu daynan, dayn lagu leeyahay oo ka bixiso, أو تدرد عنه جوعا أما قاچو آد قفكاس كسارتو. حديث كان مركا الرسول كوحو كدر
ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. إن أن walaalkay xaajo uu leeyahay kay walaalkayga tabaalaysan kayga gaajoonaya midka xanuunsanaya maalan in aan xaajadiisa garab galo oo aan isku dayo inaan u xalliyo ayaan ka jecelahay buuri rasuulku sallallahu alayhi wasallam inaan masjidka macnihi masjid an-nabawi ee Madiina ku yaala in aan i'tikaaf ku sameeyo bil dhan waxaan ka jecelahay walaalkayga gaajaysan ama xanuunsanaya ama tabaalaysan ama murugadu haysato oo aan taageero oon u xalliyo mashaakilka haysta. waynu ognahay masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam salaada kaliya ee lagu tukado inay ka fadli badan tahay 10,000 oo salaadood oo masjid kale lagu tukado sidoo rasuulku sallallahu alayhi wasallam yiri fi xadiis saxiix 10,000 oo salaadood oo masjid kale lagu tukado ayaa hal salaad oo masjidka nabiga sallallahu alayhi wasallam lagu tukado ay ka fadli badan tahay. balse rasuulki masjidkaas oo i'tikaafkiisi maaha salaadii oo kaliya i'tikaaf uu bil ku i'tikaafo oo salaad walba uu ku tukado oo uu ku dhikriyo oo quraanka ku akhriyo oo ku ducaysto ayaa wuxuu yiri ahabbu ilayya waxaan ka jecelahay an amshi maca akhi fi xaajatin in aan walaalkay ama walaashay xaaje ay leeyihiin inaan garab galo oo aan isku dayo inaan u xalliyo ama u dhameeyo ayaan ka jecelay buuri rasuulku sallallahu alayhi wasallam. marka fadligaas uu leeyahay in dadka baahan ama tabaalaysan loo adeego fadligaas uu leeyahay. waxa kaloo ka soo aroortay dariiq saxiixa kaga soo aroortay rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo xadiis ku sugan labada saxiixba in uu yiri rasuulku sallallahu alayhi wasallam kama ruwiya an abi hurayrah radiyallahu anhu warda wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi. ya allah fi auni al-abd ilahi subhanahu wa ta'ala inta uu adoonku ku foogan yahay in uu daryeelo ama taakuleeyo dad tabaalaysan dad murugaysan dad gaajoonaya dad xanuunsanaya allahu fi auni hada al-abd ilaahayna subhanahu wa ta'ala adoonka ku foogan inta aynu sheegnay iyo ka badan intuu inta ku jiro isaga amuurihiisa ilaahay baa daryeelaya. isagu wuxuu doonayaa inuu daryeelo mid xanuunsanaya dhakhtarka gee mid aan dawo haysan dawada ka bixi mid gaajoonaya quudi ama maxay hayd ilmo yar oo reer tabaalaysan ka dhashay ka dhig qof aflaxay fi aakhiraba. intuu intaa ku foogan yahay ilaahayna isaga amuurihiisa oo dhan ayuu ilaahayna daryeelayaa sida uu u daryeelayo si ka wanaagsan ayuu ilaahay u daryeelayaa. waxaad ka soo qaadaa qof muslim ah oo reer tabaalaysan oo ay ka burbursan tahay oo dhulka jiifa maalan mithaalka ugu yar baynu ka soo qaadanaynaa inaahda reerkaasaan caawinaya oo anigu wax kale ma awoodee ilmo ka mid ah ilmaha reerkaa tabaalaysan ee faqiirka ah ee darxumaysani dhaleen ayaan ilaa intuu isagu wax iska tarayo ayaan korinayaa aniga oon reerkii ka kaxayn maalan waa ta ugu fudud weey oo ilmaha yar baan madrasadan uga bilaabaya iskuulkan ka bixinaya jaamacad baan ka bixinaya ilaahay hadduu ila qabto waxaan ka dhigayaa ilmo isagu wax istara reerkaa wax tara muslimka oo dhan wax tara. qof baa sidaa goostay qofkaasu intaa uu isagu u fikirayo ilmahaasu siduu u najaxayaa ilmahaasu darxumada ka ilaalinaya ilmaha cuntadiisa ilaalinaya sidii ilmo uu dhalay ama kaba wanaagsanba. ilaahayna subhanahu wa ta'ala isaga amuurihiisa sidaa uu u daryeelayo ilmaha yar ayuu u daryeelaya. hadduu ku najaxo inuu ilmahaasu noqdo mid naajix ah oo maalan maxay ahayd wax istara oo reerkii uu ka dhashay tabaalada ka saara haddayba dhacdo inuu noqdo ilmaha yari waxa xaqiiqo ah in insha Allah ta'ala
wax kasta oo uu maxay ahayd ku caawiyey ama uu ku gargaaray ilmahaas cidduu isagu sii anfaco iyo kuway sii anfacaan iyo ilaa yowmuddiin waxa wanaag ka dhasha arrintaas oo dhan in ay u noqonayso sadaqa jaariya biidni illaahi tacaala waa arrin yar oo khafiifa balse maxay ahayd waa arrin yaroo khafiifa balse waa arrin miisaanka aakhiro aad u weyn weeye in shaa allahu tacaala bani aadamka ilaahay abuuray ee aynu ka mid nahay dad badan ayaa waxaa jira oo ilaahay uu mafaatiixda khayrka gacantooda geliyo oo ku fura khazaa'inka ilaahay subxaanahu wa tacaala ee maxay ahayd raxmadda ilaahay khasaa'inkeeda mafaatiixdaa ku fura siduu rasuulku sala allahu calayhi wasalam inoogu sheegay alxadiis asaxiix can anas bni malikin radia allahu canhu waardah ana الnabiya sala allahu calayhi wasalama qaal ina min annaasi mafaatiixa lilkhayri magaaliiqa lilshar wa ina min annaasi mafaatiixa lilshari magaaliiqa lilkhayr فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويلا لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه حديث صححه الألباني رحمه الله إلهي رسول كيسو وحوري صلى الله عليه وسلم ذاتك مؤمنين تأوحى كمدا قالوا إلهي قعنتو ذا مفاتيح ذا خيرك قليي إسلام مركانا كردقاي كوحد الباب ذا الشرك ذاتك قارنا مفاتيح شرك أيو إلهي قعنته وقلي ووحو كردقاي كو إلهي كحرو الباب ذا خيرك قعنته ذا فالعياذ بالله محوية حديث كامعنيه سو إنغو سوقا بينينا وقتي قدرتي dad baa jira ilaahay u wakiishay oo uu u doortay in ay dadka kale qalbigooda farax geliyaan wanaaga u horseedaan wanaaga ku hagaan maxay ahayd falaaxul khayr falaaxu dunya wal aakhira dadka ilaahay uga dhigay kuwa ku hogaamiya allahumma ij'alna minhum ya rabbal alamin dadkaas isla markii ay mafaatiixda ku furaan khayrkaas oo dhan haddana ilaahay dhinaca kale wuxuu ka dhigay kuwo albaabada sharka oo dhan ilaahay gacantooda ku xidho oo maalan qof baa gaajoonaya gaalo badan oo inala joogta oo waxaa jira diintooda fidinaya si sir ah u fidinaya ujeeddaday u yimaadeenna iyagoo shaar kala gashan ay tahay inay diintooda fidiyaan gaaladuna haddaad qofkii yaqaanaa garanayee waxyaabaha ugu waaweyn ee ay ka faa'iidaystaan waxaa ka mida tabaalada gaajada darxumada agoonta ilmaha yaryaree dayacan kuwaasay eegtaan maantana way ina dhex joogaan oo qaar ka midihi shaar kastoy gashan yihiin ujeeddada ugu weynay u joogaan dhulkeenna waa inay tansiir sameeyaan weeye inay dadka wixii ay gaalayn karaan gaaleeyaan qofkii markaa khayrka fura ee mafaatiixda khayrka ilaahay u doortay inuu gacantooda geliyo wuxuu noqonayaa qof dadkii tabaalaysnaa eeg waxa weeye dadkii tabaalaysnaa kuwii darxumaysnaa kuwii gaajoonayay kuwii agoonta ahaa kuwii la dayriyey kuwa darbijiifka ah ee ay eeganayaan ayuu qofkaasu gargaarayaa oo khayrkii u hogaaminaya oo tabaaladii ka saaraya dhinacan kalena gaaladii albaabka sharka gelin lahayd qofkaas ayuu ka soo xidhayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inaga dhago kuwa sidaa fala waxaan ku soo gunaanadayaa qof kasta oo maanta dhulkeenna jooga 80% haddaanay ka ahayn ama 75 qof aan haysan 75 qof aan haysan wixii isaga baahidiisa koobayay iyo wax dheeraada way yaryihiin kaba soo qaad 50 ayaa ilaahay siiyey wixii baahidoodu ahayd iyo wax dheeraada dadka caynkaasi haddii ay qadaa'i xawaa'ij almuslimiin iska indhatiraan maxaa ku dhacaya waxaan ku soo koobayaa wakhtiga darti
رسول كان عليه أفضل الصلاة والسلام وحيري إن لله أقواما أختصهم بالنعم لمنافع العباد وحي إلهي تشربوا وحي تشربوا للضدء إلهي الدورتي إن لله أقواما أختصهم الله بالنعم لمنافع العباد ضدء إلهي الدورتي ومال أسيي وعافماد أسيي وحوق أسيي وعلم أسيي وحرفد أسيي إلهي سبحانه وتعالى إن تابعوا وقلي بي لمنافع الناس إن يضدك لكو أنفعان هدي أي سيدا سميان ووحي ديراتك هاي علمها وقتي قودها عافماد كودها حوق قودها هدي أي يا مسكح دودي حرفد دودي هدي ضدك لكو تاغيران يقرهم فيها ما بدلوها إلهي النعموين انت عين صوشيني عافماد العق يعد والبي وبدها سبة وحصلنيا والنعموين كاس وين لا جوغيان قفكاس ما بدلوها انت اي سمينيان dadka ay taageerayaan ee ay cid kale la wadaagayaan fa in manacuha nazacaha minhum fahawalaha ila ghayrihim hadii ay ka hor joogsadaan oo ay cidna waxba ka tari waayaan lacagtoodii dheeraadka ahay caafimaadkoodii maskaxdoodii iyo xirfadoodii muruqoodii haday waxba ka tari waayaan ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu ka siibaa gacantooda waxa soo dhan فالعياذ بالله اللهم نجنا منهم يا رب وحولها إلى غيرهم تدكلوا ديبها إلا وحيوا إلهي وقديبي كما يصبحنا اللهم انفعنا بما علمتنا يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته